abaaraha kadib waxaa mararka qaar dhaca in daadadka roobku ay keenaan khasaaro naf iyo maalba leh. bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. horta aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Faysal Xaaji Cali Warsame, waxaanan ku suganahay degmada Dila. waxaan ahay qoyskii uu soo gaadhay daadku waxyeelada weyn ugu geystay ee naf iyo maalba uu ka qaaday. aniga wuxuu iga qaaday ooridaydii ilmo yaroon dhalay iyo gabadh gashaanti ah oo aan adeer u ahay walaalkay dhalay iyo hanti wixii meesha noogu sugnaydba uu qaaday. anigana lugtaas ayuu dhaawac iga soo gaadho. dhaawacii baan hadda u fadhiyaa. waxaan ku noolahay degmada Dila. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay baa keenay sidaas uu daadkaasi waxyeelada noo gaadhsiiyey. walaalaha iyaga de muslimiinta ama ummadda Soomaaliyeed ama Somaliland midkay doonaan ba ahaadeen cidii naga caawin kartana way u furan tahay. nimco kasta nusqaan bay leedahay. marka qofba cidba ilaahay waxbuu ku sababaa. annagana ilaahay dhibicii roob oo aan u baahnayn daqiiqado yar ka hor aan u baahnayn markay maqaadiibtan nagu dhici doonto ayuu ilaahay nagu sababay. aniga qoyskayga caruur ahaan wuxuu ka koobnaa 12 ruux. aniga iyo waridii marka lagu daro 14 ruux ayaan ahayn. gurigaan deganay hadda waad aragtaan, waad ka arki kartaan. iyaga sidaas tahay waxaan ku kala baahi jirnay meherada aanu suuqa ku lahayn. meheradina waa kan nafihii iyo maalkii iyo meheradii iyo wixii baan ku weynay. hooyahaan laguma filla markaas sidaa u eegto qof kasta oo arkaa uu garan karaa inaanu 12 ruux anay halkaa ku geli karin. dhaawac ayaan ka qabaa lugta bidixda oo sibirta ayay goday ama seeda cidiba sida ay u taqaano ama boqonta. marka waana ka fadhiyaa. maalin dhaweyd ma dhakhtarkii ka soo baxay. imika 7 ayaan joogaa halkan. marka haddii beedankeeda leeyahay cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed walaalaha iyaga ka damqanaya ee iga caawin karta qaab dhankay doonaan ha iga caawiyeen ama xagga meherad ha iga caawiyeen ama xagga hooyaha ha iga caawiyeen way u furan tahay. haddaba ururka Alfa Trust wuxuu Faysal Xaaji Cali u dhisay goob uu ku ganacsado iyo guri ay ku hooyan karaan isaga iyo caruurtiisa kadib markii daadkii biyuhu ka burburiyeen. waxaa mahad leh Ilaahayna abuurtay iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay dhaqaale aruurinta Alfa Trust.